magaalada Muqdisho waxaa lagu soo afjaray shir maalmo socday oo ku saabsanaa sayniska iyo tiknoolajiyada. Shirkaasi waxaa sanadkan diiradda lagu saarayay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahaadaha, beeraha, waxbarashada. waxaa daba shirkaasi nooga soo warramay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxaana uu gunaanadkii shirkaasi ka soo diray warbixintan. shirka sanadlaha ee sayniska iyo tiknoolajiyada ayaa sanadkan waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayay isbeddelka cimilada, xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya, wax soo saarka beeraha, caafimaadka, waxbarashada, shaqo abuurka dhalinyarada iyo ka faa'iidaysashada tiknoolajiyada. shirka socda 3 maalmood ee la soo dhaafay waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, qaar ka mid ah safaaradaha Muqdisho degan gaar ahaan Xalane oo ka mid ah safiirka dowladda Mareykanka, China iyo safiiro kale. Ka qaybgalayaasha ayaa dhammaan ka hadlayay isbeddelka cimilada, xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya, wax soo saarka beeraha Soomaaliya, caafimaadka, waxbarashada iyo dhiirigelinta shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada. agaasimaha Machadka Hana Academy oo soo abaabusha shirkan sanad kasta ayaa u sheegtay VOA in ahmiyad gaar ah sanadka ay siiyeen arrimo ay ka mid tahay xaaladda abaaraha. haddaba maxay sheegeen safiirada ka soo qayb gala shirka marka loo eego dhiirigelinta dhalinyarada? runtii waxay ka hadleen waxyaabo kala duwan. waxaa laga dhawaajiyay Soomaaliya inay waqtigii nabadda ay horumar fiican ay ka gaartay dhinaca science-ka iyo teknoolajiyada iyo dhinaca kale xisaabaadka ah balse burburkii daraadiis in aan runtii dib aan u noqonnay laakiin hadda aan higsanayno meel wanaagsan aan rajaynayno runtii inaan isbeddel waaro aan keenno. shirkan ayaa ujeedkiisu yahay in kor loogu qaado wax soo saarka Soomaaliya iyadoo loo marayo hanaanka tiknoolajiyada casriga ah iyo sayniska sida ay sharaxayso Dr. Saadiya Siyaad, agaasimaha Machadka Hana Academy. shirkan sanadlaha ah waxaan runtii xoogga aan saarnaa STEM sidaad u ogtahay waa aasaaska nolosha. haddii aan rabno inaan naqano waddan warshadaysan, waddan horumarsan, runtii waxaan nooga baahan yahay inaan STEM aan xoojino. ulajeedkeenana waxaa waaye Soomaaliya horumar gaarto, Soomaaliya oo dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda iyo runtii resource-ka aan haysano aqoon iyo karti aan ku soo saarno iyo xirfad in aan yeelano. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka 3 maalmood ee la soo dhaafay ayaa hoosta ka xariiqay in si weyn diiradda loo saaray xaaladda abaareed ee ka jirta dalka iyadoo loo marayo hanaanka tiknoolajiyada sayniskuna uu gudhig u yahay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.